Yaasmiin Cabdi iyo Cabdi Show waa labada qof ee ugu saameynta badan baraha bulshada Soomaalida 24 hour-kii ugu dambeeyay, waana wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo ku kala nool laba waddan oo aad u kala fog. Balse sababta sheekadan ayaa waxay ahayd in Cabdi Show uu wareysi ka qaaday gabadhan lagu magacaabo Yaasmiin Cabdi oo ah gabar Soomaaliyeed oo caan ah kuna nool dalkaas Mareykanka. Wariyuhu waqti badan iyo juhdi badan iyo lacag badan uu bixiyay waxa uu suurtooday inuu helo Yaasmiin Cabdi, muuqaal iyo wareysi dheerna uu ka duubo, balse sidii uu filayay wax walbaahi way iska bedeleen oo markii uu damcay inuu muuqaalka soo geliyo uuna u sameeyay xayeysiin ama soo geliyay sawiradii ugu horreeyay oo ka turjumaya inuu soo wado muuqaal ama qof uu wareysi ka qaaday, ayaa waxa uu ka helay falcelin aad u tiro badan iyo dad badan oo mucaarad ah. Dadkaas oo intooda ugu badan ka cabanayay muuqaalka gabadha iyo ama labiskeeda iyo sida ay wareysiga ku bixinayday, maadaama gabadhu ay tahay gabar Soomaaliyeed kuna dhalatay diinta Islaamka. Qof walba oo Soomaaliyana lagu yaqaanay inuu yahay qof Islaam ah, balse gabadhan wareysigan ay ku bixiday dhar iyadoo aan xijaabnayn, balse falcelin aad u tiro badan iyo dad badan oo kasoo horjeestay in wareysigan la soo daayo. Kadib wariyuhu wuxuu go'aan ku gaaray inuusan haba yaraatee uusan wax muuqaal ah uusan soo baahinin ama wareysiga gabadhan uu dib u dhigo. Balse joojintii muuqaalkaas kadib, arrintii weji kale ayay yeelatay oo wariyihii waxa uu la kulmay dhaleecayn aad u sii tiro badan oo midii hore ka badan maadaama uu joojiyay muuqaalkii gabadhan. Dad badan ayaa waxay ku eedeeyeen in uu gabadhan qabiiliyan u joojiyay muuqaalkeedii, sidoo kalena uu ku xadgudbay gabadhan maadaama qof dhan uu wareysi ka qaaday ay tahay oo waqti u soo bixiyay, muuqaalkii uu ka duubayna uusan soo gelinin baraha bulshada. Balse intaas kadib waxa ay noqotay in wariyihii soo fariisto uu muuqaal soo duubo, dadkana u faahfaahiyo wixii dhacay iyo siday wax u jiraan, wixii dhibaato ah oo dhacayna uu dadka ka raali geliyo, wax walbaahina sida ay yihiin uu dadka u fasiro. markaan arkay muddo saacad uu ku jiro barnaamijyada 50 iyo dhowr daqiiqo saacad uu ku jiro oo kulaad 2,000 oo Soomaaliya ay comment ka soo bixiyeen, aniga Yaasmiin baan wacay aan qadka telefoon kula hadlay iyadoo 6 subaxnimo ay tahay xaqiiqadii waa ka xumayna maalinteeda aan rewind garay ama aan ka qasay 6 subaxnimo ay ahayd markaas ay soo toos. I was the first person la hadla telefoon kula hadlay Yaasmiin waxaan u sheegay walaal barnaamijkii backlash kan ayaanu kala kulmayna, feedback kan ayaa ka soo baxday waa negative feedback, anigana way saameynaysaa adna way ku saameynaysaa ee maxaanu ka yeelnaa waa inaan joojinaa barnaamijkii. Anigu waxaan ku jirnay inaan go'aan ku gaarnay inaan barnaamijkii hakina for the time being horta bal inta aan wax kale la eegin iyo wada kale aan loo marin barnaamijkii joojina. ayadoo qadka ku jirto ayaan barnaamijkii go'aankaasi gaaray oo warshafeedka aad aragtay aan soo saaray barnaamijkii aan joojinay oo aan audience-ga dhageysanay. Yaasmiin marka waxay intaasi ka dambeeyay xaaladii cirka bay sii gashay oo dadkii Soomaaliyeed arrintii out of context bay ka dhigeen. ninba meel buu jeeday khabyaalad iyo waxaan loo joogin iyo reer iyo ganacsi iyo waxaan anigu iminka waxba nolosheeda kusoo korinayna oo micno badan aan ii sameynaynin bay dadka u qaateen marka inaan ku mashquulo. Sida inoo muuqata arrintan wariyuhu wax badan ayuu isku dayay sidii uu ku xallin lahaa, oo waayo waxa uu wacay gabadhii wuxuuna u sheegay in muuqaalka falcelintaas ay ka timaaday, balse sida muuqata xilligan wariyuhu waxa uu hayaa weli muuqaalkii oo wuxuu ku jiray ciwaankiisa, balse weli public kama uusan dhiginin. Balse adigu daawade ma is leedahay mase laga yaabaa inuu wariyuhu muuqaalkan mar kale dib u soo fasaxo oo uu taageero helo oo dad badan ay dib u daawadaan? Fikirkaagu waa inoo muhiim dhanka commentiga. Mahadsanidin.